ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. bulshada ما شاء الله كنت على أورجانيك شوب. طبعا عيدي واتكتي وحمد لله نهاي عيدي عملك وناكسناي حجك إلهي سبحانه وتعالى كأقبله markasta waxaan isku daynaa annaga bulshadeena organic shop ku xiran inay helaan maanta maaragtay macnaha tala fiican aragti wanaagsan ziyadoo qofku ilaahay subhanahu wa ta'ala jirkiisii oo ku amaanaystay inuu qofku inaan awood u yeelan karno inaan qayb ka qaadan karno qofka walaalkeena inaan la wadaagno wax kasta oo isaga ku kaalmaynaya inuu maaragtay naftiisii daryeelo dadka abjoogana uu awood u yeesho inuu daryeelkaas oo naftiisii daryeelay maanta maaragtay oo la wadaago marka macnaha caawa waxa weeye jirkaaga daryeel taas way waxa caawa ka hadlaynaa marka jirka daryeelkiisu macnihiisu maaha inuu sariir saarnaado in la ilaalisho in la naashnaasho ma aha macnaheedu waxa weeye sida aan jecelnahay inaan bulshadeena la wadaagno qofku inuu ogaado habnololeedkiisa maalinlaha ah waxyaabaha saameynaya ee bari ka maalin ku keeni kara dhibka maxay maaragtay qofku habo u jiftaa qofku habo u fariistaa qofku habo u cunteeyaa qofku habo u dhaqmaa waxyaabahaas qofka uu samaynayo maxay ku keeni karaan oo macnaha dhib dhinacle ay keeni karaan muxuu yahay macnaha waxbaa suubinayda waxa aad suubisay waxa ka ratibmi kara ama ka imaan kara wax kale oo jirkii aan anficaynin مثلا qofku waxa uu qaadaya waxa uu qaadayo isagu markuu qaadayo habku u qaadayo hab ma tahay isaga jirkiisii soo alla ugu tala galay oo alla awood u kala qaybiyay hab ugu qaadayo ma tahay hadduu say ahayn waxa imaanaysa in dhabarkii murid gasho waxa imaanaysa in dhabarkii meel kala baxdo waxa imaanaysa inuu muruq boodo waxa saas weey مثلا qof baa raba inuu macnaha darab qaato kale ama maanta maaragtay oo suuliga xaqiisii aado kale waxa laga yaabaa inuu isdhaw biyihii oo yasoo kale qabowgoodii ama heerkulkoodii oo marka uu korkiisa meel uga shubo oo saa ku galo muruq ku galo ama uu gacantii nuuxi waayo ama macnaha habnololeedka qofku uu jirkiisu maalinlaha u yahay marka warqaba qofku macnaha ma ogtahay maxaa dhib ku keeni kara maxaa nafci ku keeni kara taas way mid aan rabno dadka walaalaheena organic shop ku taxan inaan la wadaagno in maanta maaragtay wixii aan islaana alla ilaahay nafci bay keenayaan in maanta la wadaago macnaha annagu awood uma leeyahay inaan maanta dhan wax alla wixii wadanka ka baxayo beeraha intaan keeno aan maanta maaragtay ummadda lagu wada soo laakiin waxaan isleenahay arma awoodi kartaan wax dadkan haddii maaragtay ay noloshooda ilaashanayaan wax noloshoodii kaaba oo ku sima inay ilaashadaan noloshoodii wax ku kaalmeeya armaad la wadaagta dadka walaalihiina taas weeye midda maanta maaragtay muhiimka noo ah مثلا maanta waxaan isleenahay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala jirkan aan arkaysaan taagan oo shaqaynaya heerkulkiisa ilaalinaya unugyadiisa difaaca ilaahay siiyey unugyadii ka dhimanaya meel isaga maaraynaya isaga haynaya waxaasoo dhan jirkaas wuxuu u baahan yahay nafaqo ku kaabta ku kaasha ku kaalkaalisa maanta maaragtay in uu noqdo maanta maaragtay jir awood u leh inuu waxaas kala maareeyo oo jirkii kala nadiifiyo oo qashinkii kala saaro oo maanta maaragtay intii nafciga lahaydna qaato intii wasaqda lahaydna uu jirku iska daadiyo jirka saas alla uu tala galay laakiin annaga waa waxa jirka haleynaya marka say u haleynaynaa annaga waxa haleynaha waxay yihiin waxa anugu aan cunayo weli laga yaabaa dhakhtarkayga inaan u tago oo maanta i dhaho miyo waxa iska ilaalidaa maanta مثلا waxyaabaha acidka lahoo dhan iska ilaali waxyaabaha fishta marka la dhaho kale ama fizzy drink loo yaqaano iska ilaali ha taabanin waxa laga yaabaa kaliyahaga inay dhaawacaan مثلا markaan kasoo baxan leeyahay laga dhaafo iska warramayaay wabilcagsi wuxuu dhakhtarku ku sheegaya inay runteedii tahay oo sida uu dhakhtarku kula hadlayana ay tahay macnaha meeshaas iyada ee kaliya ah waa kan kaliya oo maanta maaragtay meesha kaliya oo hadday mar kharibaad ku timaado ay adag tahay in la soo celiyo laakiin qofku inta uu haysto oo awood u leeyahay مثلا inuu ilaashado miithaalan kaga soo qaadanayna jirku waa weeyaan waxa u baahan tahay meeshaas ilaalinteeda nafaqo runtii ku kaalmaynaysa meeshaas waa meesha jirka la filtreeynayay dhiigii oo dhan maraayay wax kastoo suna lagu reebayay waxaasoo dhan marka qofku ma ka warqabaa maanta maaragtay meesha jirkiisa uu ku baryaayo ama uu ku hoyanayo
ogyahay qofku miska warqaba mise waxa weeye wax kasta waxa iskale ilmaha waxa iskale dadka kale waxa iskale inta kale oo nafta adig alla kugu amaanaysa kama warqabtidba laakiin maalintii fariisato ilmihii wax ka warqaba male dadkii kale wax ka warqaba male jirkii kale wax ka warqaba male marka halkaas waxa imaanaysa marka qofkii dhammaay waxtar ka lahay soo saaraha ahay in uu noqdo qof ku xiran oo kaliya isbitaal iyo guri inuu u dhaxeeyo haddii macnaha functionkaas kaliya dib oo gaaro macnaha qofkii ummadda anfacayay wuxuu ku soo aruurayaa sariir iyo isbitaal tag soo noqo macnaha inay dhaqid gaaraan oo qofkii uu halis u yahay marka mar dhaqid gaaraana qofkaas waxa weeye waa qof asaga oo naftiisa intaas uu hadda joogo buu leeyahay maaragtay uu fadhiya laakiin waxa ummadii u taraayo ama uu bulshada usoo siyaadinayo waa yaraaneen macnaha waxa alla wuxuu xikmad iyo cilmi iyo awood u lahay waa fariisa sababtu waa maxay intii jirkan uu caafimaadka qabo ordaya kama warqabin hal maalin uu dhakhtarkii tagay dhakhtarkii wuxuu warninku wuxuu ka haystaa waa meeshaas marka dhibaatada anagana haysataa ka bulsho ahaan waxa weeye wuxuu intaadan gaarin wax ka qabad la'aan intaysa gaarin in aad iska warqabto weeye maaragtay oo jirkaaga aad ka warqabto aadna maaha waana wax alla subxaana wa tacaala uu mas-uuliyad kaaga dhigay saad uga warqabayda carruurtii iyo reerkii iyo xaajigii iyo dadkii iyo ummadda laga warqabayo qofku asna inuu iska warqabaa maxaa yeelay mar kasta ratiga lagu guuraahu nooc doonaba ha ahaadee in laga warqabo waa muhiim daaqdiisi in meel la dhigo maaragtay heeryadii la saari lahay kabadii dhaawac ka celi lahayd waxaasoo dhan in la saaro wey soo ma ibni aadamkuna waa lamid waxa la isticmaala waa lamid gaadiidka la isticmaala saasa looga warqabaya qolyadaha laga bedelo lugihi ha laga bedelo fariinkiisa ha la ilaalisho daaqadihiisa ha la fiiriyo saasoo kale unbaa qofkaana alla subxaanahu watacaala meesha taaganay arkaysaan oo alla uu dhulkaana mas-uul uga dhigay asagoo inuu mas-uul iska ahaada ay tahay matalan marka keliyahaas hadaan u noqona iyaga hadda maxaa kaalmay kara qofkii qofka waxaa laga rabaa inuu biyo cabkiisi badan yahay qofku totally waa inuu biyo cabkiisi badan yahay waa inuu cuntada ka horna biyaha cabaa qaacidadan biyaha kadib cuntada la cunaaho waxa weeye waxyaabaha khudaarta ama faakihada ama waxyaabaha fiican oo dheecaanada wanaagsan leh mar kasta cuntada ka hor weeye annaga laakiin cuntada la cunaa marka cuntada la cuno bariiskii iyo baastadii cadday caloosha laga buuxiyo ayaa waxaa lasoo dhigayaa tufaaxii mooskii canabkii adduunyadii hadde ay fitamiinaadkii waxna ka buuxinaa lasoo dhigayaa hasheega waa wax khasaaro wey waa cunto khasaarto wey khalaas maxaa dheefshiidkan iyo waxaan iyo faa'iido kama heli jirka laakiin ka hor wey marka uu anfacayo imbeesha bariiska iyo baastadan iyo burkan isla dhacaysa iska yaray kuwaan badso ka hor biyaha badi ka hor khudaarta badi ka hor fajadi waxyaabaha macnaha jirka anfacaya badi dareerayaasha oo dhan waa inay ka hor badnaadaan taas awood waxay u siinayaan keliyuhu inay is ilaalishaan dheecaan fiican helaan maaragtay ay iska nadiifiyaan wasaqdii waxyaabahaas cuntana ay faa'iidadii kala baxaan ay keenaysaa maaragtay marka saasoo kale marka annaga waxaan isku daynay in aan bulshada bal dhankaas wax ka kaalmeeyo jirkooda ilaalintooda ma aha meel gooniya laakiin jirkoo dhan ilaalintooda wax ka qayb qaadan kara inaan usoo dhaweyno bulshadii sida haddii alla kuu roon yahay boqorka dhirta oo kale oo ilaahay hadduu kuu roon yahay loo yaqaano red mushroom loo yaqaano runtii waxa weeye waa kaabe iyo kaaliye unugyada jirka weeye maaragtay waa xaqiiqatanna waxa weeye waxa loo yaqaano haddii alla kuu roon yahay spare partiga jirka ama waxa weeye unug bedelaha awoodda u leh inuu unugyadii jirka uu bedelo oo muxuu ka bedelaa inuu ka dhaqo kii dhintay inuu meeshii kii dhintay oo qashinkahay wasaqdahay oo ka baxana oo awood u yeesho inuu ku kala ku dhasho oo jirku saas marka ku fiicnaado saas awgeed dadka waxaad arkaydaa jirkooda aan ka warqabin oo macnaha jirkooda aan lahayn saxarada oo dhigayo waxaa laga yaabaa inay u ekaato dhiiggii oo kale inay u egtaha laga yaabaa taasna waxa weeye macnaheedu keliyihii dhaawacme jirkii dhaawacme unugyadii jirka dagaalay ku jiraan dhimashadaas ay dhimanayaan saxaradiisa waxay u ekaanaysaa dhiigga qofka caafimaadka qaba ee fiican waxaa laga yaabaa markuu saxarooda saxaradiis waxay u ekaanaysaa khudaarta xaggeeda u ekaanaysaa sida doogaas oo kale ay xaggeeda u dhawaanay soo kullamaa oo xagga u bato oo kullamaa qofku dhanka dooga xaggiisa u bato khudaarta xaggeeda u bato alkaleenka xaggiisa u bato kullamaa uu jirka ou nafisan yahay ou fiican yahay ou dhaawiciisu yar yahay kullamaa jirka oo dhanka dhiigga markuu wax dhigaayo hadday kaadi ahaa laheed hadday saxara ahaa laheed oo kalarkaas u badanayana kullamaa jirkaas uu yahay jir acid macnaha jir waxa weeye ay siloon tahay fudan tahay ay aad u fudud tahay in ay cuduradu ku dhashaan maaragtay kullamaa jirka doogga u badan yahaana si horena ugu celcelinay waxaa ku badan jirkaas inuu ahaado jir alkalayna oo maanta difaaca jirka uu xoogan yahay oo saas awgeed in dadku ay ka warqabaan wey ma aha oo keliya calool dheer iyo biixiyada dheer keliya ma aha noloshu laakiin waxa weeye jirkan iyo lafahan iyo waxaan arkaydaan maxaa energy runa sii kara maxaa sii kara dhiig fiican oo oxygen ka buuxo maxaa sii kara
waxaas way waxa aan rabnay inaan bulshadeena la wadaagno waana waxaas waxa organic shop oo doonayo inuu bulshada ay maanta maaragtay ka faa'iido ahaan u qaataan runtii muhiim maaha annagu inaan productigan hor yaalla waxyaalaha muhiim maaha laakiin muhiim waxa walaalayaal inaan idinla wadaagno in aan awood u leedahay adigu inta uusan dhakhtarku ku dhihin dhibkaana ku haya inaad isdar yeesho oo aad naftaada ka walwasho oo aad ka warqabto sababtoo ah mas-uuliyadda lagaa rabo ayaa ka weyn wax walba si mas-uuliyaddaas aad u gudan kartid dhankay doontaba ha ahaato mid ilaahay kaa raba ha ahaato mid mujtamaca iyo dadka adigu aad ka dhalatay oo u nooshahay ha ahaato labadaba mas-uuliyaddeeda saa u gudatid waa in adiga aad tahay qof iska warqaba oo jirkiisa ka warqaba oo og waxa uu ku baryay oo og waxa uu ku nool yahay si aad maanta maaragtay mar kastaba wixii dhibaataha u imaanaya waqtigeedii markay joogto aad awood u leedahay inaad uga hortimaado aa uga waxaysato taas waxaa ku dheer marka geedkan aan hadda ka hadlayno wax kale maaha waa energy dabiiciya iyo unugyadii jirku habeeyo kuwa kala kuu soo raaca oo maanta maaragtay matala hadda isburuliinaha oo kale waxa weeye waa dooga aan ka hadlayno jirkiiyo wuxuu siinaya wax alla wixii vitamins oo loo yaqaana vitamin b kumolkiisa oo dhan iyo wax alla wixii loo yaqaanay mineralska oo dhan haddii aad dhahdo omega 3 iyo omega 6 iyo aad dhahdo ayaad ka helaysaa malihin waa keligiis laakiin waxa weeye inta geeda alla abuuray ee faraha badan ee faa'iidada leh ee maanta la ogaaday ka mid yihiin ee hadda diyaarka u ah dadku inay si fudud u qaataan ubadka yaryaraay baa u baahan waxaa u baahan dadkii maanta waayeelka ahay baa u baahan kuwii dhalinyarada ahay baa u baahan kuwii dhexdhexaadka ahay oo ordayaa u baahan macnaha waxa weeye waa kaalkaale iyo kaabiya unugyadii jirka weeye maadaama aadan cuni karin maalin walba intaasoo khudaara iyo inta la karinay waqti una jirin ayadiiyo si fiican loo suubiyey laga warqabo a to z waxa ay tahay kambaniga waxaan ka hadlayaan oo yahay kambanigu asagu beera asagu baakingareeya asagu maanta maaragtay gacantaada kusoo simaya oo aan cid kale aan marti uga ahayn oo isagu baarin weeye waxa aan ka hadlaynaa macnaha saasaa qofka awood wuxuu u leeyahay inuu ka warqabo jirkiisii wuxuu cabayaa wuxuu cabo u baahan yahay waxa uu cabaa subaxaas uu cabaa oo biyaa oo hadda alla kuu ron yahay waxyaabaha loo yaqaano sida kafeegii iyo shaahii iyo casiiradii iyo awood wuxuu leeyahay inuu helo alaab quality leh wuxuu waa lacagtiisii alaab quality leh naftiisa noolaysa inuu ku helo maanta maaragtay oo uu kaga gaabsado inuu maanta maaragtay kiimikadii xaggeedii oo u baahnaado ama uu maalin walbaba dhakhtarkii waanadii siinayo oo dhakhtarkii waanadiisa uusan maqlaynin maanta maaragtay oo la leeyahay khudaarta badso waxyaabaha saxarada jamciye badso waxyaabaha biyo markaas oo leeyahay ninkaan wax runta noo sheegi maaragtay baashi haddii alla kuu rooyahay nama siinayo naga wada kan biyo cabba haddaad tirahdaba naga wadaa ka dhacaysa biyaha waxa weeye waa nolosha jirka jiritaankiisa qayb weyn ka qaadanayo weeye ilaalintiisa maaragtay inuu jirku ilaashoomo waxaan arkaynaa oo dhan caawada haddaa cunaysid asaasan biyo cabayni wax faa'iida a ka keenaysid mala biyo cabku waa inuu zaa'id yahay si jirka waxa haya ee socodsiinaya oo ay ugu muhiimsan yihiin qaybaha ka midka oo ay yihiin keliya ay yihiin ay u helaan dhul maaragtay ilaahay hadduu kuu ron yahay dhiig biyihii ku badan yihiin kor dheecaanka ku badan yahay khudaartii ku badan tahay difaacii iyo ka ilaalintii cudurka uu ku badan yahay taasaa maanta maaragtay muhiimta marka walaalayaal waa farbadan yihiin productigeena marka waxa aad aan rabnaa inaan aad baldhugta gelidaan jirkaaga inaad adigu aad ilaashan karto oo uusan dhakhtarka aada markaato kaaga ahayn aad dhihin bas dhakhtarka unbaa ilaalin kara adiga waaye waxa jirkaaga mas-uulka ka ah ilmaha ku agjooga mas-uulka ka ah dadka waayeelkaha ku agjooga mas-uulka ka ah adiga waaye adiga marka waa inaa heshaan thaqaafo aad jirkaaga ku ilaalido dadka aad mas-uulka ka tahayna jirkooda ku ilaalido maanta maaragtay oo inta goorgoor tahay ay maanta maaragtay laga gaari karo ama haddaa wax aragto aad dhakhtarkii ku sami karto oy ciladaas intaysa sii weynaanin ama dhib aysan geysan marka walaalayaalo macnaha waxa weeye waxaan jecelnaha inaan idin wadaagno mas-uuliyad inaa isa saartaan ah ilaalinta jiritaanka jirkan in uu ku wado si aad tii allana u gudato tii mas-uuliyadda dadkaagii kugu soo tiiriya tacabeelana aad u gudata iyagana maanta maaragtay soo marka waxaa kaloo kamid a productiga ahayno maanta maaragtay oo aad iyo aadka u fiican macofijiga ayaa kamid ah oo runtii aad iyo aad u faa'iidaba 23 geed weeye dhan kasta jirka waxa weeye xeedha zaa'idka jirka ku jirto ka saaraya awood wuxuu leeyahay qofku inuu miisaankiisa ku maintain gareeyo oo maanta maaragtay uu ilaalisho asagoo maanta maaragtay aan cuntadii ka tegaynin inuu saddexda waqti kamid uu inta kusoo aadiyo oo cuno awood wuxuu leeyahay marka qofku uu cabo waa la qasayaa asagoo weli dareeraa ama haba badanaa jira ma uu cabo habeenkii intuusa seexan oo kale ama subaxii quraacdii oo kale labadaasoo mid ka dhiganaya
calooshuu galaya markuu caloosha galo wuxuu noqonayaa buufismaya macnaha wuxuu noqonaa sidii kubadiyo kale uu ku aruurayo markaas awood wuxuu u yeelanaa uu dhaqaaqa calooshiyo wuxuu luxaa luxid adig ma dareemaysa laakiin calooshu ku dhex boodbooda taas waxay keenaysaa marka in alla wixii ku jiray oo wasaqaya jirka caloosha oo maanta maaragtay oo soo aruursado oo qofkii awood u yeesho maalintii inuu 2 jeer ama 1 mar oo saxaroodo ay u fududeydo maanta marka qaaloonka oo kale haduu dhib ka jiray gaas oo kale haduu jiray mashaakil badan oo caloosha haday jireen aad iyo aad wax uga qabanaya dad fara badan oo maanta maaragtay miisaanka u tabar la'ay miisaankuna ma aha walaalayaal oo cuntadan iska deynaa miisaan ma aha laakiin miisaan waxa lagu ridi karaa markaad hesho alaabtan supplementiga ay hesho waxa aad cunayna waa yareynay macnaha bariiska iyo baastada iyo waxyaabaha maaragtay sokorta cad iyo waxyaabahaas oo dhan ayaad yareynaysaa laakiin kuwaana booskoodii ku galaya ka nafaqada kuwaasna caloosha waxaad u siinaysaa midna qadadii oo kale ay waxaad u siinaysaa in caloosha ay shiido laakiin haddaad dhahdo si aan u caatoobo cuntadan iska dayna haddaad dhahdo ina cayilaysa ogow sababtoo ah calooshu markasta waxay soo deynaysaa dheecaano waqtiga loogu talagalay cuntada dheecaanadaas meelay aadaan male korkiiba dhex galayaan dhorkiiba wuxuu ku noqonayaan waa baranayaan qofkii marka xayray isu bedelayaan marka xayrtaasoo dhibaato u keenaysa qofkii waxaa arkay waa baahan yahay waa cayilan yahay waxaana lagu leeyahay waa jireen wax ma cuni karo macnaha waxaan ku leeyahay wax ma aana cunin waana cayilin ma aada cayilin laakiin waa uumibax jirkaaga ku jira waa waxa weeye nafaqo xumi haysa jirkii ayuu la bararaya jirku hadhow marka alaabtaa markaa isticmaasho waxaad dareemaysaa marka jirkii inuu shuuqaayo maxaa yeelay waxyaabihii xaydhahayan loo baahnayn jirku u baahnayn oo dhibaatada ka timid cuntadii aad iska joojisay ayaa maaragta laga shiilaya kadibna awood wuxuu jirku u yeelanayaa in maanta maaragtay uu ismaintain gareeyo oo is ilaaliyo oo qofkii markaa awood u yeesho inuu miisaankiisa kordhiyo miisaankiisa rido adoo arkaya waxaa awood u leedahay isbuuci gudihiisa inaad 2 kiilo isi saarto awoodna u leedahay inaad 5 kiilo iska rido macnaha qof xataa saas inuu barto waaye macnaha awood inaad u leedahay waaye oo taqaanid waxaad cunaysa maxaa yeelay qaacidadeennii sallallahu calayhi wasallam nabaraaba waxay ahaydba annagu waxaan nahay dad aan wax cunin ilaa ay gaajoodaan hadday wax cunaan aan ka dhargin macnaha waa cunay laakiin dharg oo calooshii aad marka istaagi weydo macnaha ma saxan bariis oo weyn inaad ka dharagto waxa laga yaabaa inay kaaga filantaa 3 qaadoo bariis inaad ka cunto inta kalena aad ka dhigata supplementiga ama kalkaalayaasha maaragtay jirka cuntada xaggiisa marka walaalayaal waa far badan yihiin waxaa laakiin aad iyo aad u fiican oo مثلا xagga dhanka kaliya oo kale kaalmeentooda aad ugu wanaagsan waxa weeye waa ninkan asaga ah haddii alla kuu rooyahay waxa kaloo ka mid ah ninka loo yaqaano cortisol loo yaqaano waxa weeye keliyihii ma la ilaali macnaha haddii uu dhaawac jiro waxa laga yaabaa in ilaahay uu sabab uga dhigo inuu qofkii ay maintain gareeyaan oo ay awood u yeeshaan wixii dhibaato ka jiray in maanta maarta ay wax ka qabtaan aad iyo aad ugu fiican dhaga kaliyaha dad badan aan aragnay oo ma sha Allah khayr badan ka sheegay wanaag badan ka sheegay isticmaalkooda maaragtay ma sha Allah waxa kaloo lamida dadka qaba xagga neerfayaasha oo kale iyo gariirka ama ilowshaha faraha badan ama kharafka waxa loo yaqaano in alignmentiga asagana aad u anfacayo ay yihiin marka waa iskaabayaal aad isu kaaba qofkuna ay fiican tahay naftiisa inuu ku ilaashado laakiin muhiimku waxa weeye waa biyo cabku weeye alaabtaas oo dhan waxay wax daraysaa qofku hadduu biyo cabkiisa oo badan yahay macnaha waxa la dhahaa kaliyaha waa ku duceynayaan biyo badan haddaa cabtid habeenkii markaad sii seexanayso inaad 2 koob biyo cabto ha ka weysanin inaad kaada u soo kacdo habeenkii ha dhibsanin in weysadu ka jabto marka aad weysaysato ha dhibsanin macnaha in biyo in nafta ilaalinteeda ka hor istaag macnaha maaha weysada ay jabayso biyo macabayo alla macnaha maba cibaado waa raaxo waay macnaha waa shay lagu raaxaysto waay saas awgeed hadday jabto marka la weysayso laakiin kaliyahan ha ku daynin biyo la'aan ha ku dilin korkan inay inta ku noqdaan suu soo qaadaan haddana dhaqaan ay waqtigii alla ugu talagal ka hor baaba'aan sabab ha ugu noqonin maanta maaragtay marka waxaan u jeedaan oo dhan waa wax nafci waxaan aad u jeclaanahay inaan xoogo marka aan ku soo qatimo mawduuca waxa aad iyo aad hadda aad u yaala oo organic shop oo soo bandhigaya kliniga loo yaqaan cement waa nanac kuleel waaye nanac kuleel waaye sokor kuma jirto laakiin wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay xagga qumanka halkan qumanka xaggeeda ayuu aad ugu fiican yahay fresh oo afka ka dhigaya dadka qufaca badan riiraxyada badan haddii alla kuu roon yahay thyroidka dadka xataa oo dhibka ku haya naftirkeeda wax badan uu tarayaa maaragtay wuxuuna ka suubsan yahay mushroomka ayuu ka suubsan yahay taas waxay keenay marka in
xakamayntii dheecaankii qanjidhadii dheecaanada keenayay ama macnaha ama cuntadu markay sii marayda dheecaanka ha raacayaan ama difaaca u suubiyaan ama maanta maaragtay balansiga jirka kaga warqabaan aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay iyo furka maaragtay inuu sankii iyo wixii ay furmaan marka aad iyo aad marka ciyaalka oo kale aad ugu anfacaya qofku maalintii ugu badnaan maaragtay 4 xabo hadduu ka cuno waa okay weeye 4 xabo ayuu hadda markuu dareemo riixay markuu dareemayo ayuu qaadanaya waa laga yaabaa qofka hadduu 5 gaaro in markaas uu suuliga aado waa laga yaabaa oo macnaha caloosha ay jilicdo marka yuusa ka welwelan oo ka cabsanin maaragtay waa okay weeye waa qofka u baahan baaba soo bir kara laakiin ciladaas waa laga yaabaa inay timaado sideeda kale okay weeye da kastaan cuni karta sokorna kuma jirto si dadka sokorta qabaya inay kaga waxaan saas awgeed dadka ciladaha jirkooda oo sheegay sida dhiigkarka sida sokorta sida kolestaroolka oo sheegay oo kale dadkaas waxa looga baahan yahay in ay maanta dhankii khudaarta ay xoog saaraan alaabtan kalkaalayaashana waa anfacay biyo cabkooduna uu bato waa in biyo cabkoodu bataa sababtoo ah marka ciladahaas la arko halis waxay u yihiin dhaawac kaliya halis u yihiin hadduu dhiigkarka yahay hadduu yahay sokorta hadduu yahay kolestaroolka markastaba waxa way kaliyaha dhaawac u yihiin sababtoo ah markastaba xadkii loogu talagalay ka baxsan yihiin marka kaliyuhuna jir balance garaysan oo nidaamsan baa inay ka shaqeeya ay tahay loogu talagalay laakiin annagu haddaan jirkeena ku cayaarnay marka cayaartii jirka aan ku cayaarnay dhibka ay keenay waa inaan ka ilaalinaa qaybaha kaloo badka qaba jirka in laga ilaalisho weeye maaragtay walaalayaal taasaan jeclayn caawa inaan idinla wadaago maanta maaragtay runtiina waa organic shop aadan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan maanta maaragtay aad maaragtay aad noo siisaan macnaha waxyaabaha xaggiina iyo reactionada in kasoo baxa ama maanta maaragtay khibradda aad ka heshaan productiga in kaga soo siyaada si dad kaloo walaalihiina oo dhibka haayo ay uga faa'iidaystaan maaragtay waana ku mahadsantihiin talooyinkiina wanaagsan saasaan maanta maaragtay caawo intaas ugu soo gaabsanaynaa organic shop waxaan leenahay hadde waa dabcan ciidda horteedana waa dinan ciid wanaagsan tanna waxaan rajaynaynaa muusimkan qiimaha badan oo qaayaha leh kiisa kale ilaahay inuu si nabad iyo khayr barwaaqo oo nagu gaarsiiyo insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh